hay'adda kaydka raashinka iyo aafooyinka dabiiciga ayaa waxay xarun ka furatay gobolka Togdheer waxaana xaruntani xadhiga ka jiray gudoomiyaha hay'addaasi Faysal Cali Sheekh oo ay wehelinayaan mas'uuliyiinta gobolka Togdheer. Xaruntan cusub ayaana noqonaysa xarunta ugu weyn ee laga maamuli doono hay'adda kaydka raashinka iyo aafooyinka dabiiciga ee gobolada bariga Somaliland. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii hay'addaasi ee heer gobol waxayna faahfaahin ka bixiyeen dhismaha hay'addan maanta xadhiga laga jaray. bishu ay tahay 9 bishii saddexaad 2019 waxa xafiiskii horeeyay gobolada bariga laga xukumayay qaybta Norfolk hay'adda tabaabashaysiga dhibaatooyinka dabiiciga iyo kaydka cuntada ee qaranka ku soo dhawaada farxad furan. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay barsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Maayir Muraad. furitaanka xafiiskan markii horena hay'ad loo jeeday neerad buu ahaa maanta hadda ka sii balaadhay oo cilmi baadhis deegaanka iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka dabiiciga ka hortagistooda shay aad iyo aad muhiim u ah dhulkan anaga bixinay oo dawladda hoose bixisay imakana diyaar baan u nahay gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaa dawladdu sideedaba waa ninteeda isku xiran haddaan la wada shaqeyn cid gaar u shaqeyn kartaa ma jirto waxaan isagana gudoomiye soo dhawow oo kula shaqeynayna hay'adda halkan inoo dhistay maanta halkan inoo joogtana ayagana waanu mahadnaqaynaa xarunweynada halkan ka jooga fiiska cusub ee loo dhisay noqonna doona xarunta laga maamulo dhammaan gobolada bari ee hay'adda Norfolk waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa hay'adda fulisay dhismahan oo runtii wax badan ka tari doona baahiyaadka aasaasiga ah ee gobolku uu qabo in maaragtay laga daryeelo ama laga waraabiyo dadka nugul maaragtay abaaraha dadka baarakacayaasha dadka IDPs-ka oo runtii waqti xaadirkan u baahan in si mug leh wax loogu qabto. gabagabadii waxaana goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo aafooyinka dabiiciga Faysal Cali Sheekh kaas oo ku dheeraaday hadalka kaydka gobolada bariga oo dhan inaan halkan hadii Ilaahay yiraahdo aanu ka sameeyno qoraaladii iyo dokumentigiina waan u soo gudbinay barasaabka iyo meeyarka waan u soo gudbinay waana naga aqbaleen gobolka Togdheer runtii waa gobol aad iyo aad u qiimo leh gobol aad u ballaaran gobol nugulo amar walba abaaraha iyo dhibaatooyinka runtii soo noqonaya sanadihii u dambeeyay oo u badnaa gobolka Togdheer Sool Sanaag iyo Saraar iyo ay u badnayd runtii waxaanu jecelahay in aanu si weyn oo mug leh hadii Ilaahay yiraahdo aanu uga shaqeyno inaanu istoodhadii waaweynaa runtii aanu oo laga sabalay gareyn doono Sanaag Sool iyo boohoodle iyo dhinacan oo dhan runtii laga iyo Saraarba laga sabalay gareyn doono inaanu halkan ka sameeyno qaybta kalena aanu ka sameeyno dekada Berbera oo iyaduna xuduntii wuxuu marka ay noo soo degaan noqdo oo filiqtan iyo hawlaha maartay deeqaha la bixinaya anay noqon kuwa filiqtan. waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal muqbaahiyaha madaxa banaan ee BC24 TV.